munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay waftigii ka socday maamulka Khaatumo ee wadahadalada kula jiray Somaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Ceerigaabo. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madax dhaqameed waayeel waxgarad aqoon-yahan dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo tiro badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay isla markaana bulshada reer Ceerigaabo uga xog waramay ujeedada socdaalkooda xubnihii ka socday maamulka Khaatumo ee uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Ismaaciil Shabac. qodob ardiir raacinaya waxa weeye halka waxaanu imaanigu uma niman inaan kordhiyo dhibaato iyo cunfi iyo tol la isku xoqo uma niman anigu halkan waxaanu imi wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo iyo Somaliland ku wada jireen waxa aan xog ka hayo iyo waxa la doonayo inaan dadka u soo bandhigo oo ay ka tashadaan dadku shacabka reer Sanaag ee sida sharafta la noo soo dhaweeyay waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka sida wasiirku sheegay hadafka iyaga koowaad ee aanu halkan u nimid waxa weeye ma qarsoona wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo ee muddada soo socday ee bisha July 10keeda kiisiin la saddexaad ama afraad uu ka bilaamayo inaanu shacabka uga xog warano ayaanu meeshan u nimid inaanay aayahooda ka tashadaan taladoodana ka soo qayb galaan oo ay dhinacyada ka soo fadhiistaan oo waxa weeye arrimihii masayrka ahaa ee taariikhdu qoraysay baa laga wada hadlayaa inay soo taladooda iyaga leh soo fadhiistaan baanu meeshan u nimid ujeeddo kale iyo dhibaato kale iyo ciidaanu la halgamayno iyo mucaaradnimo umaanaan imanin annagu beel kama tirsan reer Khaatumo shanta beelood ee reer Sanaag waxay ka tirsan yihiin Khaatumo kuraastii beelaha kalena waa naga banaanka waa banaan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo waxgarad kuwaas oo sheegay inay soo dhaweynayaan wafdigan ka socday Khaatumo ee wada hadalada kula jira Somaliland sidoo kalena waxay dhaliil u soo jeediyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka biyaha Somaliland oo ay sheegeen inay sortaa ku sameeyeen munaasabadan ay ku soo dhaweynayaan wafdigan ka socotay Khaatumo wadanka Somaliland xorriyad iyo dimuqraadiyad baa ka jirta cidna lama horo kala shirma qaban kartaan cidna wadankeeda looma diidi karo waxaanu leenahay tolka yimi waa soo dhaweynaynaa waanu iswaraysanaynaa wasiirka biyaha waxaanu leenahay gacal iyo reerka halka laga soo galo baro faratoonna waxaanu leenahay colaada aad u diiday laascaanood cirgaaba ka ridi maysid reer cirgaabana nabad baa u dana waana wada hadlaynaa faratoon iyo waxaanu leenahay dadka reer Sanaag ku soo biira iyo Xuseen Cabdi Boos ku soo biira reer Sanaag Yusuf Cabdi Xasan Cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.